halkan waxaan joognaa maanta waxa weeyaan oo taariikhdu tahay 17 July 2014 waxaan joognaa xaruntii dhexe MCH ka Fadaadan oo u shaqeysa deegaan aad u ballaaran oo ka soo bilaabma deegaanka la yiraahdo Damal ilaa iyo Kabaalqabad sida ku sheegay xanuunka paralysis oo u gashay isbitaalka Boorami 2013 October kadib markii la cadeeyay inaanay ahayn dabaysh ayaan isku daynay inaan taageerno inaan halka ku daweeyno halka wax ku qaataa khadra Afrika oo kala gidisay waqtiyo kala gidisay qaadato khadra inka rajib fiican waxay ku leedahay in iskeed u fadhii karto awal may suuro gelin inay sidaa inka badida ugu fadhido aad may suuro gelin marna manay dhaqin jirin inay istaagto oo ay magaranaysaa laakiin kalideed way istaagi kartaa hadii garabka la yarqato isku dayeedu wuxuu leeyahay in khadra ka waran waqtigii ugu horeysay xanuunkan ay ku abaaray goormay saxeed imisa sanad qabtaa okay waxa ku rajooynahay mustaqbalka xanuunadii magaranaysaa waxa jira xanuuno la yiraahdo xanuunada ku walaalaha maaragtay paralysis-ka xanuunadaasi oo aan kolkii la cadeeyay booliyadii inaanay ahayn isku wadna inaan daweeyno mustaqbalka dhow waxaan rajaynayaa laba kamid ah inay dawadeedii dhamaysatay mid baa u hadhan waxaan doonayaa mid kaana inay bilowdo toddobaadka soo socda maanta inaan isugu nimid farxadda ay ku naaloonayno ee ku jirto maanta khadra xasan ismaan oo muddo badan ahayd qof lugteeda weeday oo paralysis ahayd muddadaasi oo maaragtay soo martay xaalado kala gedisay waxay taariikhdu 29 bishii shanaad ayaan ka soo qaaday boon iyadoo xaaladeedu aad u liidato oo aan fadhiga karayn iska daa wax kale waqtigaasi waxaan halkan keenay muddo 3 bilood bay dawo qaadanaysay waxaan ka daweynay xaalado kala gedisay oo ay ka mid ahayd nafaqo darro xanuuno la yiraahdo rheumatism oo lafaha qalloociya bini'aadamka neuritis wax la yiraahdo iyo osteomyelitis kuwa la yiraahdo oo lafaha ku dhaca marka waqtigaasi waxaan u bilownay dawada markii ugu horeysay kuwii nafaqeynta jirka ayaan bilownay si dhiiggeeda iyo nafaqada jirka loo soo dhameystiro markii labaad waxaan ku xijisiinay kuwa dareenka xoogeeya oo neurotonics-ka la yiraahdo waqtigii saddexaadna waxaan ka daweynaynay in magaranaysaa xanuunadii lafta taabtay ay ka mid ah rheumatism iyo salmonella disease kuwa la yiraahdo inaan ka daweyno allama haddii waxaan ilaahay nagu guuleeyay in magaranaysaa ay taam noqoto muddo 9 maalmood markii ay dawada qaadanaysay xaaladaha kala gedisay soo martay waxa maanta aad arkaysaan horeyna weydikii waqti aad halka timaadeen oo arkay sidii ay ahayd xaaladeedu waa wax maaragtay wax aan ku faanayna maaha wax ilaahay in karsiiyay inaan daweyno kuwa kale ee la midana waxa rajaynayaa haddii alla yiraahdo inaan daweyn doono mustaqbalka dhow wixii la mid ahaa iyada ee aad aragteen ee lugaha wax ka qaba ama garaysa adimada gacmaha wax ka qabay halkana waxa leenahay dadka ku soo dhawaada waa xarun lagu daweeyo dadka ma garanaysaa qabo dhibaatooyinka noocaas ah xarun soo aragteen idinkana waxaan aad idinkaga mahadnaqaynaa lacagtii aad ugu deeqdeen waxay inaga gargaartay dawooyin aan halkan oolin inaan ugu soo iibino oo aan maaragtay ku gaarsiino kaalintii aan doonayn aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin mar labaad inaad noo timaadaan oo aad nagala soo qayb gashaan farxadda khadra mustaqbalka waqti dhow waxay doonaysaa haddii la yiraahdo in halka ka tagto waxaan la sugaynay in magaranaysaa aan markaa kulankan oo kale aan qabsano iyo la sugaynay